السلام عليكم كسو دبادة نور سكوكي maanta waxaa idin wadaa bariis aan ka sameyn doono kareem maasha Allah bariiska aad u fiican yahay wajigana wuxuu ka dhigaa tight bariiska kaligiis hadaad isticmaashada wajiga tight kaaga dhigaa wuxuu u fiican yahay dadka wajigooda miimiinka galay sida yani daada ka daba tagtay oo kale u fiican yahay wajiga uu fiican yahay maasha Allah bariiska hadda waan qasi doonaa 3 saac amal oo iyaala wakaas anigoo soo qasay bariiska oo 3 saac kadib maasha Allah wax yar aan ka sameeynayaa bariiska wax badan isticmaalay waxaan u talagalay inaan idin tuso maasha Allah wakaas waxaan ku dari doonaa caano iyo bariiskii aan soo qasay bariis walba xaafada ku yaala oo isticmaali karta kaliya waa qasaysa 3 saac kadib amal ashiidi doonta waxaan ku shiidi doonta alaabahan aan ku tusi doonaa ku dari doonta insha Allah wax badan maaha waa wax aad faa'iido u ah kareem aad u fiican maasha Allah ku soo bixi doona wajigu u fiican yahay hadda waxaan ku dareynaa waa caano aan soo qasay maasha Allah caanaha iyo bariiska isku shiidi doona muhiimada loo qasay bariiska waxay tahay inuu ku jilco bariiska maasha Allah hadda waa soo shiiday bariiska waa miiri doona marka miir insha Allah waxa isla aadi doona dabkan saari doona bariiska iyo caanaha si uu u noqdo kareemi maasha Allah dabkan waxa geey doonta meesha ugu dambayso caanahiyon hadda filteri waaye maasha Allah wakaas hadda dabku ii saaran yahay dabkan meesha ugu hooseysaan geeyay waa aragtaa durba waa aragtaa sidoo yani kareem inuu noqdo uu dhow yahay waa aragtaa maasha Allah waqti badan kugu qaadanayso kaliya 3 daqiiqo kugu qaadanay ilaa kareem uu ka noqdo waa aragtaa sidoo hadda kareem uu noqday maasha Allah hadda waa soo bixin doonaa dabka hadda kareemi uu noqdo ka daji doona kadib waxyaabo kale aan ku dardari doona isla arki doona maasha Allah waa aragtaan hadda sidoo ku soo baxay waa diyaar markuu sidaan yahay laakiin hadda baaquliyaan ku soo shubtay waxaana ku dari doonaa hadduu Ilaahay kala la noqdo saliid qumbe iyo vitamin E meesha yaalo oo wax aad u fudud heli kartid saliid qumbaha skin-ku u fiican yahay waxyaabahan oo wax dabiici oo maqaarka u fiican ma ahan wax kiimikaad ah ma ahan wax ku cadeyn doono sida oo bleach-ka oo kale ma ahan waa wax dabiici ah kaliya wuxuu ku siinaa shining yar ku siinaa maasha Allah maqaarkaagana uu kugu fiican yahay vitamin hadii loo dhaho vitamin E ku darsanaysa iyo bariiska iyo caanaha iyo dabiici ah iyo saliid qumbaha iyo maqaarka u fiicnaa waa alaab dabiici ah maasha Allah aad u fiican yahay marka sidaan u qaso hadda waxaan ku darayaa vitamin E aan ku dari doonaa vitamin E markaan ku daro kareemka xaafada ma isaga tagaysid fridge-ka gashanaysa hadii kale uu ka halaaba ileen wax dabiici ah laga sameeyay ma ahan wax kiimikaad ku jiro haday ugu badato hal maalin banaanka uu ku yaali karaa inta kale fridge-ka haysatid week 2 isbuuc wax badan waa haysan kartaa hada falanjeerka gashanaysid hadaa la falanjeer haysanin hal maalin amal oo ku yaali karaa oo waxaan soo tijaabiyay maasha Allah wax aad u fiican aragtana sidoo uu qasmay isku dhaxgalay maasha Allah هذا la rabo in isku dhaxgelisid kareemkii vitamin E-ga
wasaqda skinka ku jira boriskan wuu ka qaadaa. all body waa u isticmaali kartaa, wajiga kaliya ma ahan. maasha Allah, aragta siduu cream u yahay. bariiskan ka sameeyay iyo aniga iyo weel yar ku shubay, inta kale fridge-kan gashtay. waa intan waa caawa iyo bariyan isticmaali doonaa.